Saqa waxaan ka codsanaa gabadhayda ii soo celi korkeyga waa iga dhaawacday. Gabadhayda ii soo celi, gabadhayda la'aanteeda ii soo celi. Korkeyga waa iga dhaawacday. Gabadhayda la'aanteeda ma noolaa kariyo, ii soo celi. waxaan kaa codsanayaa aqri adduun kala badan gabadhu her iyo habeen waxay weydiinaa gabadheedii weydiihe cabdirasaaqow ilaahay khayr qaba ku siiye waa kuu duceeyaha kolba gabadhii igu soo celi cunugeed igu soo celi waa dishay kolba dishay cunuga maalin aakhira ku xisaabtamaynaaye cunugeedii igu soo celi الرحمن الرحيم magacaygu waa Xuseen Xaashi Raagi walaalayaal gabadhan masaakiinta oo yarta ana dhalay dekada Boosaasood xamaali ka ahay 16 sano iyadoo jirtaan nin siiyay ninkii xamar oo la soo guuray xamar doow keenay day u dhashay waa uu dilay narbaati noqotay adugu dhabarka uu ka jabshay asay waa iga fakado waa iga cararay adugu macal waxa uu galay dhinaciisa Itoobiya uu iga cararay ninkii dadaan dacweeyay waa iga fakaday anigana waxaan ku daaweysto ama macnaha wax ku siisto ma aan haysto dadka islaamka oo muslimiinta oo Ilaahay u gargaaro waxaan ka doonayaa wax aan dhaqtar ku geysto inay igu caawiyaan oo isbitaal aan ku geysto saas ay ka codsanaya Ilaahay jannada inuu geeyo maalkiina awlaad Ilaahay barakeeyo anugaas meesha ay ila qaadin miskiinka waxaan ku soo koriyay hooyalaan hooyadu waa hore ay dhimatay 16 sano aan kaligay dusha ku hayay ka bacdina iyo 16 jir aan siiyay hadda 22 sano jirta ninkii da'day u dhashana waa uu dilay da'diina waa uu ka qaatay neerbaati noqotay wixii uu ku dhuftay madaxa nabar ku dhuftay neerbalna noqotay oo lugu dhamay ka qalashay iyo gacanta dhan waxaan dhaqtar ku geeyna ma haysto mana awoodo mana heli karo lugtiisa kor ma qaadi karo xabad kaliya uma gada karo gabadhii gabadhii asaga ka qaatay oo ka watay gabadhii aabba ilaada mana haysto mana keena ma aqal isaga qaatay gaar la ku riday marka in adeer yaalo islaamnimo haday jirto gabadhaas miskiinta 22 sano jirta hal igu gargaaro salmaada markaas inta ay imaado madaxa cunuga dartiisa isku dagaalmay cunuga dartiisa la-albeelka isku dagaalmay beelka isku dagaalmay markaas kale ay soo qaato sina madaxa ay garaac gabadhiina oo ay qaato oo ay tuuro gabadhiina oo la ordinayna madaxa kale ay garaac dhulka ay tuurooni ordo ina gabadheeda ii soo celiyo oo daa isiinin hataa soo tashay aabbaha urfaan qaakina daa kaliya wajisa hataa gaari aabbaha urfaan qaakina ahay anigu waa iska xanuunsanahay gaariga hataa oo curyaaminta oo ku qaada ma haysto musqusha ana geeyahay oo qaadaay ana xasaaray ka soo dhaqaay ana soo celiyahay xayinkee wax kasta awoodi waayo gaariga hataa ma awoodo maanta oo ma haysto dhaqtar hadaa farmashiga geenayo garabkan saara waa un qaada marka taas jirta islaamka Ilaahay taas ogaatina ka doonaa Ilaahay siyayda oo islaam waxa ka codsaha furuhiga waa 86 23 85 numberkaas inaad igu saacidiin ay ka codsanaya islaam oo saaciday taasan ka codsanaya insha Allah Saqa waxaan ka codsanaa gabadhayda ii soo celi korkeyga waa iga dhaawacday. Gabadhayda ii soo celi, gabadhayda la'aanteeda ii soo celi. Korkeyga waa iga dhaawacday. Gabadhayda la'aanteeda ma noolaa kariyo, ii soo celi. waxaan ka codsanayaa aqri adduun kala badan gabadhu her iyo habeen waxay weydiinaa gabadheedii weydiihe cabdirasaaqow ilaahay khayr qaba ku siiye waa kuu duceeyaha kolba gabadhii igu soo celi cunugeed igu soo celi waa dishay kolba dishay cunuga maalin aakhira ku xisaabtamaynaaye cunugeedii igu soo celi
الرحمن الرحيم magacaygu waa xuseen xaashir raagi walaalayaal gabadhan masaakiinta oo yarta anaa dhalay dekada boosaadood xamaali ka ahay 16 sano iyadoo jirtaa nin siiyey ninkii xamar oo la soo guuray xamar dow keenay day u dhashay waa uu dilay narbaati noqotay adugu dhabarka uu ka jabshay asay waa iga fakada waa iga cararay adugu macal waxa uu galay dhinaciisa Itoobiya uu iga cararay ninkii dadaan dacweeyay waa iga fakaday anigana waxaan ku daaweysto ama macnaha wax ku siisto ma aan haysto dadka islaamka oo muslimiinta oo Ilaahay u gargaaro waxaan ka doonayaa wax aan dhaqtar ku geysto inay igu caawiyaan oo isbitaal aan ku geysto saas ay ka codsanaya Ilaahay jannadii igu geeyo maalkiina awlaad Ilaahay barakeeyo anagas meesha ay ila qaadiin miskiinka waxaan ku soo koriyay hooyalaan hooyadu waa hore ay dhimatay 16 sano anu kaligay dusha ku hayay ka bacdina iyo 16 jir aan siiyay hadda 20 sano jirta ninkii da'day u dhashay waa uu dilay da'diina waa uu ka qaatay neerbaati noqotay wixii uu ku dhuftay madaxa nabar uu ku dhuftay neerbalna noqotay oo lug dhama ka qallashay iyo gacanta dhan waxaan dhaqtar ku geeyna ma haysto mana awoodo mana heli karo lugta sakor ma qaadi karo xabad kaliya ma gada karo gabadhii gabadhii asaga ka qaatay oo ka watay gabadhii aabba ileeda mana haysto mana keena ma asaga qaatay gaar la ku riday marka in adeerayaalo islaamnimo haday jirto gabadhaas miskiinta 20 sano jirta hal igu gargaaro salmaalda markaas inta ay imaado madaxa cunuga dartiisa isku dagaalmaka cunuga dartiisa soo biilka isku dagaalmaka biilka isku dagaalmaka markaas kale ay soo qaato sina madaxa ay garaac gabadhiina oo ay qaato oo ay tuuro gabadhiina oo la ordayna madaxa kale ay garaac dhulka ay tuurooni orda ma gabadhiina ay soo celiyo oo daa siinin hataa ay soo taso aabbaha warfa masaakiina hadaa kaliya wajisa hataa gaari aabbaha warfa masaakiina ahay anu waa iska xanuunsanahay gaariga hataa oo curyaaminta oo ku qaada ma haysto musqusha ana geeyahay oo qaadaay ana xasaaray ka soo dhaqaay ana soo celiyahay xankee wax kasta awoodi waayo gaariga hataa ma awoodo maanta oo ma haysto dhaqtar hadaa farmashiga geenayo garabkan saara waa un qaada marka taas jirta islaamka ilaahay taas ogaatina ka doonaa diyaay siyayda oo islaam waxa ka codsaha furuhaygu waa 86 23 85 lambarkaas inaad igu saacidiin ay ka codsanaya islaam oo isaaciday taasan ka codsanaya insha Allah darsaaqo waxaan ka codsanaa gabadheeda ii soo celi korkay waa ay dhaawacay gabadheeda ii soo celi gabadheeda la'aanteeda korkay waa ay dhaawacay gabadheeda la'aanteeda manoola kariya ii soo celi waxaan ka codsanayaa aqri adduun kala badan gabadho هريهم وحي ويدينا قبل دي ويديه عبد الرزاق إلهي خير قوسي وكود عيها كل قبل دي يوسع عنقيد يوسع وادي الشيء كل بدي شيء عنق معنا أغرق حساب تميناي عنقيد يوسع الرحمن الرحيم magacaygu waa xuseen xaashir raagi walaalayaal gabadhan masaakiinta oo yarta anaa dhalay dekada boosaadood xamaali ka ahay 16 sano iyadoo jirtaa nin siiyey ninkii xamar oo la soo guuray xamar dow keenay day u dhashay waa uu dilay narbaati noqotay adugu dhabarka uu ka jabshay asay waa iga fakada waa iga cararay adugu macal waxa uu galay dhinaciisa Itoobiya uu iga cararay ninkii dadaan dacweeyay waa iga fakaday anigana waxaan ku daaweysto ama macnaha wax ku siisto ma aan haysto dadka islaamka oo muslimiinta oo Ilaahay u gargaaro waxaan ka doonayaa wax aan dhaqtar ku geysto inay igu caawiyaan
oo isbitaal aan ku geysto saas ay ka codsanaya ilaahay jannada inuu geeyo maalkiina awlaadii ilaahay barakeeyo cunugaas meesha ay ila qaadiin miskiinka waxaan ku soo koriyay hooyalaan hooyadu waa hore ay dhimatay 16 sano aan kaligay aan dusha ku hayay ka bacdina iyo 16 jir aan siiyay hadda 20 sano jirta ninkii da'day u dhashana waa uu dilay da'diina waa uu ka qaatay neerbaati noqotay wixii uu ku dhuftay madaxa nabar ku dhuftay neerbalna noqotay oo lugu dhamaa ka kallashay iyo gacanta dhan waxaan rabtar ku geeyna ma haysto mana awoodo mana heli karo lugtiisa kor ma qaadi karo xabad kaliya uma gada karo gabadhii asaga ka qaatay oo ka watay gabadhii aabba ilaada mana haysto mana keena ma aqal isaga qaatay gaar la ku riday marka in adeer yaalo islaamnimo haday jirto gabadhaas miskiinta 22 sano jirta alla igu gargaaro salmaalda markaas inta ay imaado madaxa cunuga dartiisa isku dagaal marka cunuga dartiisa la biilka isku dagaal marka biilka isku dagaal markaas kale ay soo qaato sina madaxa ay garaac gabadhiina oo ay qaato oo ay tuuro gabadhiina oo la ordayna madaxa kale ay garaac dhulka ay tuurooni ordo na gabadhiina ay soo celiyo oo daa isiinin hataa ay soo gasho aabada urfaan qaakina daa kaliya wajisi hataa gaari aabada urfaan qaakina ahay anigu waa iska xanuunsanahay gaariga hataa oo curyaaminta oo ku qaada ma haysto musqusha anaa geeyahay oo qaadaay anaa xasaaray ka soo dhaqaay anaa soo celiyahay xayinkee wax kasta awoodi waayo gaariga hataa ma awoodo maanta oo ma haysto dhaqtar haddii farmashiga geenayo garabkaan saara waa un qaada marka taasaa jirta islaamka ilaahayow taas ogaatina ka doonaa ilaahayow siyayda oo islaam waxaa ka codsaha furuhaygu waa 5 86 23 85 nambarkaas inaad igu saacidiin ay ka codsanayaa islaam oo isaaciday taasaan ka codsanaya insha Allah